لقى مقعد يا حلوان عبد الغني داود قلنا كان مدى حلوان قولها الدقائق قد قولها مرنا runtii hay ururta aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaya baa saxaafada wadada gobolka Awdal sabab markaan ka hadlo ra'yigan oo ku saabsanaa ururta ku saabsanaa darajo bixintii madaxweynuhu oo dhawaan oo saxay una lagana bixinay gobolada Soomaaliland runtii marka kooxda toona mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida fiican qadarinta iyo xushmada iyo tixgelinta uu ku guuleystay inuu bixiyo darajooyinka ciidamada waana soo dhaweynaynaa waana wax la sugayay waana qayb ka mid ah dawladnimada waana hoggaanka ama midnimada midda lagu garan karo inuu yahay dawlad waa marka ciidanku kala dambeyn iyo qadarin iyo tixgelin yeesho askari walba ama ciidanka sare ciidan ka dambeeyo taan ku mahadinaynaa walow ay jiraan cadaalad darro aan ka tirsanayno guddidu qaabilsanayd darajo bixinta taana waxa uu tusaalaha saraakiil badan oo gobolada Awdal iyo Soomaaliya Jubilee kamid aha oo ilaa hadda aan wax darajo loo surin garabkooda oo lagana aamusay lana xasuusan uu kamid yahay rag badan oo kamid yihiin Maxamed Cabdi Taliyi gobolka Awdal mar haystay qaybta Seylac mar haystay waxa kala kamid ah taliye trafficta marna aha madaxa siyaasadda Soomaaliland taliye Axmed Daahir gobolada Awdal iyo Soomaaliya iyaga kaloonan halkan aan sheegi karin aad u badan oo ilaa maanta ana wax maamuus ama tixgelina ana wali gudida darajo bixinta ayna siin waxaan leeyahay madaxweyne dalkan waa dalkii lagu dhaariyay wadadkii lagu dhaariyay cadaaladda waa ka simanahay oo si bayna loo wada dhaariyay anigu maxamadana wada dhaarisay madaxweyne waxaan leenahay gudida waxa u fartaa dadka dib ugu eegay gudidan darajo bixintana bariyaal ay laabin taliyayaasha ama saraakiisha cabashada muujinaya dib ha lagu noqdo recommendation ka codsigoodana hal eego madaxweyne maalintii ay dhimay afka gudbadeenaysa fagaaraha Hargeysa wadiga ilaa Soomaaliya waxa laga soo baxay cadaalad darro cadaalad darro inaan la kalfino tixgelin iyo qadarin oo isku leeyahay madaxweyne la tixgelin darajooyinka la siiyay way wanaagsan yihiin wayna cajabiyeen ciidamada qalabka sida waa ciidamo wadanka habeen iyo dharaar heegan u ah wayna si qurux badan iyo darajooyinka loogu qaybiyay si qurux badanna waa loo siiyay si qurux badanna waa loogu talay si wanaagsan felicitation waa oranayna oo soo dhaweynayna darajooyinkaas waan ku qanacsanahay kuwa iyo kuwa kale ka badan ama si lamida qaybinta Soomaaliland ay qaybisay xilalka in saraakiisha ama booliska waxa uu qaybisay si cid kasto xilaysa uu dhiibtay waxa laakiin la filay janaanadii ay lahayn jireen beelaha darafyadu laguma hayo maamuladii hore ee Soomaaliland soo maray kuwan asal maxayn way sii jireen janaanka booliska ama kaas dhigta gobolka Awdal kale imikana jaran lama arag lama maqal marka sababta waxa leeyahay ma aslantaa haysa weyn laakiin beelaha darafyadu tabasho xoog leeyahay ku jira beesha gudaha ayaa xukunka gacanta ku haysanayna laakiin darajada cid kasta oo soo baxday in jabadii beelaha xaajire meelaha iska maamulin jiray imka sharciga kala dambeyn ayaa imanaya taasna uu xasilooni keenay doonta laakiin tabashada xoog leh ay dadku ka tabanayaan isweydiina waxa tahay saraakiil fara badan oo aqoon sare u leh booliska iyo militariga ayaa total Soomaaliland kuma jirinba leeskana qaadan raashin qaadan imikana la siin darajo oo iyagu Soomaali way sugay waxaan u maleeyaa marka hore dadku ciidanka ku yaraayn moogta ciidanku halka waxa ciidan waxa jabadii asnaba qabsatay waqooyiga ciidankiiba ugu badnaayeen dad kale oo nafu geyso ba qabsaday inta ku jirtay wala siiyay laakiin dadka faraha badan leh beesha dhaxa ee tobanku ku dhow aslan bay kamid ahaayeen aslan bana ciidanka iska leeyo xandarinta iyo maamulka dawladda saas ugu batay laakiin saraakiil fara badan oo inaga Soomaali weyn bay qabaan oo gobolka Axmed Gure ka dhashay Soomaaliya kala badana way diideen intii ogolay laakiin darajo wala u khaldamay waa lagu khaldamay waxa gobolka ka soo jeedan weeyay khaladku gobolada kale waxba lagu daray ku alif lagu daray inaga ragna saraakiil sasraaya xil hoose la siiyay de taasna ma laga wax kasta ka caawinayna ama sida ummadaha sameeyno saddex jabadood ba Soomaaliya burburiyay waa aslan SDF iyo USC saddex ma ala laakiin beeriyaha jabadaan layni ala ka samarka si u joogta horta marka oo horsada darajadu waa hawl ciidan waa sir ciidan weeyaan hawsha qofkii ka cabanaya in darajadu waxa ama xuquuq laha waay waxa haboon in nidaamka ciidan maro
oo cabashadiisa uu mariyo halka lagu tala galay guddigii qiimeynta inay maraan anigu markaan darajooyinkayga aad baan ugu hambalyaynaya xukuumadda waxa yar ee qaldana ku jirana albaabadu furan yihiin guddigaas waxaan aaminsanahay inuu ahaa kii ugu dhowaa ee cadaaladda shaqeeyey saraakiisha ay wax ka maqan yihiin aan darajadooda la siin mari maayaan nidaam beeleed mari maayaan nidaam kale ciidankooday marayaan albaabka waa u furan halkaas loo saxaya darajada qofku haysan uu lahaa marka hore cid alle cid ka goyn kartaay ma jirto waxaan talahaan ku bixinayaa weliba in faragelinta howlaha ciidanka iyo darajooyinkan xukuumadda u taallaa waa hawl dawladeed inaan aad faraha looga gelin oo dadku sidaan looga sheekaynay maqaadaha iyo bushashka meesha ay lahayd darajada iyo ka hadalkeeda loo daayo maadaama ay tahay hawl ciidan taasaan u dadku talin